booliiska gacanta ku hayo gurigan aan dhex joogno waxa wax loogu qeybi jiray bulshada Soomaaliyeed oo maati ah sida ku cad warbixinta uu qoray gacan ku dhiiglahana wuxuu sheegay lacag 60 iyo ka badan 60,000 iyo ka badan inay dhaxdooda taalay uu dabadeed isku khilaafeen uu marxuumku ku yiri shaqadan anaa bilaabay anaa watay anaa ogol waxay sameeyay jiray ee iga tag adiga haddaan ka tagay wixii aan kugu leeyahay xaq aysi iyo kuma siinay kumbigu milid shaqada anaa qabsanay wixii hore oo inta Allah kugu anfaco dabadeedna ninkan uu gacan qaad bilaabay isqa qabsigii mindidii iyo waxay isku qabsadeen mindi kan la baxay kan mindidii markuu ka taagay halkaas uu ka galishay kan bistooladii la baxay hal xabad uu gacanta ugu dhuftay maadaama uu ka xoog badnaa intii laalay uu bistooladina gacanta kala wareegay dabadeedna uu 3 xabadood ku dhuftay sida ku cadeed kiiska biskooladii iyo mindidii la isku dagaalay asagaana wacay booliiska Soomaaliyeed gacan ku dhiiglaha oo 199 wacay uu yiri atooraha badda la dilayna soo gaara markii booliisku ay yimaadeen intaysa imaanin ka horna wuxuu dabaqada sare guriga saaray saqafka guriga ku tuuray bistooladii iyo mindidii ay isku dhufteen markuu booliiska yimidna wuxuu u sheegay in niman shabaab soo weerareen dileen asagana uu ka badbaaday arrinkaas oo aan sax ahayn oo marin habaabin bulshada Soomaaliyeed uu ku sameeyay ugu dambeyntiina uu qirtay inuu dilka asaga geystay saaxiibkiisna gacantiisa ku baxay wax dhex yeeleen ay ahayd maal adduunyo oo dhan 60,000 iyo wax jajab ah la jiro marka bulshada Soomaaliyeed waxaan xaqiijinaynaa gacan ku dhiiglin in gacanta lagu hayo maxkamadda loo horgeyn doono marxuumkana inuu dilay asaga qirtay kiiskan uu cad yahay ay sajirin wax shabaab inta soo weeraray gurigan soo galay uu dilay marxuumka afkiisna uu ku qirtay gacan ka dhiiglaa inuu asaga dilay shalay bacdul afrun ay dhacday وما هتسنتين كيس كان سيدا صعوبة